ومضيت وحدي في ظلام. بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني إن شاء الله تعالى waxaan ka hadli doonaa 3 sifo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kitaabkiisa Quraanka uu ku sheegay oo dadku ay u kala bixi doonaan sifo waa sifo wanaagsan oo qofka hadii laga helo runtii wanaaga akhlaaq buu yeelanayaa ummaddu nabad gelinaya waxa laale wixii Ilaahay subhanahu wa ta'ala una ogolayn ayuu ka reebtoomaya wixii Ilaahay ogol yahayna wuu qabanaya masaajidada laga ma waayo qofka wanaaga khayraadku ku dheeraynaya yani wax walba wuxuu ka hormarinaya wixii Allah subhanahu wa ta'ala uu koonka soo dejiyay laguna soo dejiyay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sifada koowaad waa taa sifada labaad waa qof sheeganaya inuu islaam yahay wuxuu sheeganayaa inuu hooyo muslim dhashay aaba muslim dhalay isagu islaam yahay ilaahayna wuxuu ku tilmaamay wama hum bimu'miniin ma aha mu'min oo mu'miniin ma maxay yeelay afka bay ka sheeganayaan laakiin Allah subhanahu wa ta'ala agtiisa kuma weyna iyadoo la adimayo adinkii salaadii ajiibayn akhlaaq xumo wadankii ku dhex jooga diin daruuj la jooga yani ilaahay subhanahu wa ta'ala ma yaqaano yani islaamnimadan uu ku dhashay ee ilaahay ku fadilay mooyee qiimo badan ilaahay agtiisa kuma laha hadduu qiimo badan ilaahay agtiisa ka leeyahay ilaahay uma diideen inuu waxan uu sheeganayo ay run ka tahay Allahi baan og Allahina abuurtaana garanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala uu na og yahay oo yani maaragtay ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga naga warhaya haddana qolada iyada ah iyagoo islaam sheeganaya waxay doonaan ha noqdeen siday doonaan wax u aaminsanaadeen ilaahay wuxuu ku tilmaamay inayna ahayn dad wanaagsan oo mu'miniin ah qolada saddexaad ee aan ka warrami doono إن شاء الله تعالى وقالده هو إلهي سبحانه وتعالى ديدن نبو ديدن إلا المؤمنين تقول رئيسان صوت المعنى إلهي بينبو أضيعين كون إلهي بينبو ديدين وعكس بيسكويه قلنا وقلوا ناكسن ومؤمن بالله هذا إلهي بي أضيعين نبي محمد صلى الله عليه وسلم جدكي سي بي قاتين ددكي بي نبد قليين إلهي بي كحشودين مساجددي بي عمرين وح الله لوحي إلهي أديدين هاي ويكارين wixii ilaahay subhanahu wa ta'ala fartoomayna way fartoomeen oo way qaateen waa qolada muuminiinta imma gaalada oo sifada saddexaad ah yani waxay diideen wax walba oo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka soo jeeda inkiraad yaa ku abuuray ma oga wax abuuray ma ogola ilaahay baa abuuray subhanahu wa ta'ala marka saddexdaas sifo oo adiladeeda wata ayaan tilmaami doonaa insha Allah ta'ala xilqada ku xigta وبالله توفيق